السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله إيجا حران ماما منى عافماد يا قروح مر لبعض مر صدحات بوحا إذن الله يسود وهذا إن ما أنت عجل كأنه وحا وكساب سنة هاي متى ولا ربطا إن وجه جيدا وصن لحانين فنان أما وجه جيدا وصن لحانين هارو متى ولا على الأذك أو أن مسكوشة تجين متى ولا ربطا عافماد كذا skinkeeda iyo caafimaadkeeda guudba in ay mataqaanaa kor u qaado ma tahay walaal haysata ilma aan cuntada cunin intaba ma sha Allah tabarakallah stay tuned marka hore walaalayaalow inta aan idin soo bandhigin waxyaabaha cuntooyinka ah ku anfici kara in aad samaysato skinkaaga uu glowing yeesho oo uu qurux badnaado أما عروش هذا إفرنتو وحان ربا إنا وذا فهمنو إلهي سبحانه وتعالى عجل هراء كجهد لي يجرا عذرو دن وعروشة marka hadii aad tahay gabar haarahan iyo waxaan wajiga ku soo noqnoqonayo hadii aad tahay qof cuntadiisii mataqaana aan cuni karin hadii aad tahay qof caafimaadkiisa ama madax xanuun badan leh ama jir xanuun badan leh ama lugu xanuun badan leh hadii aad tahay waxba keenay marka waxyaabaha ugu weyn meesha ugu weyn ee qofka bilo aadmiga ah laga hogaamiyo xubnaha jirkeena ku jira way kala qaalisan yihiin ma sha Allah tabarakallah marka hadda maanta xubinta aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay waxa loo yaqaano digestive system oo ah caloosha iyo sida ay u shaqeyso caloosha iyo sida ay u shaqeyso iyo cuntooyinkii caawin lahaa in calooshaada fududeyso ayaan rabaa mataqaanaa inaan halkan aan ku wadaagno calooshaada hadii ay fadhido cudur oo dhan iyo adiga waxa tihiin dirs halkaas arin iga qabso quruxdaada iyo wajigaaga iyo mataqaanaa cunto cunidaada intaba waxa u dhacaysaa hoos ayay u dhacaysaa marka ay calooshaada ay fadhido waxa halis u tahay waxyaabo fara badan ayaa halis u tahay oo uu kamid yahay colon cancerka ama xiidmaha kansarka ku dhaca ayaa mataqaanaa aad halis u tahay also waxa kale oo laga yaabaa in calooshaada xirnaanshaheeda ama adayga calooshaada ay keento waxyaabaha loo yaqaan sida gastriga ama H pylorida ayadana mataqaanaa waa suurtagal laakiin maanta qayb danba ayaan kaga hadli doonaa H pylorida iyo gaska iyo maxaa la ma sha Allah tabarakallah waxyaabaha noocaas sida oo la dhilgareyn lahayd laakiin common concept oo ah waxyaabihii calooshaada ku furi lahayd ayaan mataqaanaa maanta aan wadaagaynaa biidnillaahi baari saddex qaybood ayaa noogu kala qaaday ma sha Allah maadaama walaalaha su'aashan aad ugu soo noqnoqotay aadna ay muhiim u tahay walaalo iiga xiran ayaa jira back home Africa iyo mataqaanaa Soomaaliya ma sha Allah tabarakallah Allah idin barakeeyo iyo walaalo iiga xiran North America oo Soomaaliyeed ma sha Allah Europe America Canada whatsoever meesha ay joogtidba meel walbana waxa fiican waxa laga helo ayuu qofku uu isticmaali karaa marka saddex qaybood ayaa noogu kala qaaday qaybta koowaad hadii aad tahay walaal calooshiisa aad ay u adag tahay adiga ayaa caafimaadkaaga garanaya oo aan lahayn cudurka loo yaqaano sokorowga jirkaaga hadii uusan ku jirin muddo 7 bari ah waxa wadaa biyo kulul koob biyo kulul ah iyo qaado malab ah marka subaxa hore soo kacdo kabacdi haddana waxa isku darsataa wixii ay ku quraacan kartay adiga oo ku quraacanaya ayaa waxa isticmaalaysaa qaado malab ah 3 xabo timir ah jeex babaay ah Allahumma salli ala Muhammad hal qaado oo ah aloe vera waa dacarta marka ma sha Allah Soomaaliya aad uga baxdaa waa kala jaraysaa waxa kala soo baxaysa maxaa lahaa qaado ayaa kala soo baxaysa iyo hal qaado oo hadba saliida midda ay heli kartaa hadii ay heli karto saliida loo yaqaano maxaa la yiraahdaa saliid saytuun hadii ay heli karto hal qaado ayaa ka qaadanaysaa hadii ay heli karto saliida loo yaqaano saliid qumbaha ama saliida coconut ka timaado oo pure hadii ay heli karto hal qaado ayaa ka qaadanaysaa hadii ay heli karto saliida avocado ka timaado iyadana hal qaado ayaa ka qaadanaysaa ma aha saddexda saliidood ina isla wada isticmaalayso laakiin pointiga waxa weeyaan alaabtan aan soo sheegay timirta
malabka babayga iyo dacarta in aad ku darto hal qaado oo saliid ah xataa saliid siisinta way ku shaqeyn karaysaa ma sha Allah tabarakallah markaasna waxaad ku shiidaysaa haddii aad kali u cuni karto oo aad isku dari karto waad isku dari kartaa haddii aad mataqaanaa smoothie ahaan aad ka samayn karto oo aad shiidan kartana waad shiidanaysaa muddo 7 bari ayaa wadaysaa biidnillaahi baari wixii arintaas kaaga soo baxo calooshaada ila soo socodsii biidnillaah qaybta labaad ma sha Allah tabarakallah qaybta labaad waxaad isticmaalaysaa haddii aad heli karto figa geedka loo yaqaano af Soomaali waxaa lagu yiraahdaa tiin mana aha ma sha Allah tabarakallah geedkii tiinka ahaa ma aha sawirkiisaas ayuu mataqaanaa u egyahay laakiin waa shay sunno ah ma sha Allah tabarakallah marka waxaad qaadanaysaa tiinkaas ayaad mataqaanaa aad waxa ka cunaysaa number badan ayaad ka cunaysaa ma sha Allah tabarakallah also haddii aad heli karto waxa kale oo aad qaadanaysaa ama meesha aad joogto laga helo avocado ayaa qaadanaysaa avocadada iyo tiinka waa isku dari kartaa waana isla cuni kartaa ma sha Allah tabarakallah qaybta saddexaad ee miiska noo saaran waa qaybaha aan rabo inaad noloshaada ku darto ma aha inaad 7daas bari kaliya aad isticmaalayso waxaa kamid ah digirta waxaa kamid ah avocadada waxaa kamid ah figaas oo kale inaad isticmaasho waxaa kamid ah any kind of qudaar aad heli karto waxaa kamid ah qajaarka intaba mataqaanaa iyo spinachka intaba waxay kamid yihiin waxyaabaha sahla ee qofka calooshiisa waxa kale oo North America laga helo oo aan hubin in Africa laga helo ayaa waxay yihiin yogurt loo yaqaan Activia hadaba maxay ku fiican tahay waxa ku jirto maadada la yiraahdo probiotic oo ka samaysan good bacteria ma sha Allah tabarakallah aad iyo aad ay yogurtan u fiican tahay saas oo kaleeto iyadoo waxa jirto caruurta yar laba tan caadiga cunto ahaan maalin walba waa u cuni kartaa adigoo ka shaqeynaya inaysan calooshaada dib aysan u adkaanin saas oo kale iyadoo waxa jirto probiotic caadi ah oo mataqaanaa iyadana aad muddo 7 bari ay isticmaalayso waa tan mataqaanaa for kids ay ku qoran tahay also mataqaanaa yogurtan kaleeto ee caadiga ah oo iyadana probiotic ku qoran iyo chia seedka iyagana waxay ka mid yihiin waxyaabaha aadka caloosha u fura haddaba su'aasha aan rabo inaan idinka jawaabo waxa ay tahay maxaan iskugu keenay caloosha iyo haaraha maxaa waa relationshipka ka dhaxeeyo calooshaada markay adag tahay oo calooshaada aysan si fiican u shaqeyneynin waxa imaanayo oo wajigaaga waxa sign u ah oo imaanayo inaa haara yeelato inuu wajigaaga midabkaaga wajigiisa uu isbedelo inay nabro badan ay ka soo baxaan intaba waa fariin ee calooshaada ay ku soo dirayso fariintaasna ma aha wax daawo kor laga marsaday ama mid la isku cadeeyay ama huruud isku dhaqday ay ka baabi'inayso marka please hadii aad tahay gabar walaashay ah oo Soomaaliyeed oo rabta inaad quruxdaada iyo caafimaadkaaga iyo enerjigaaga aad kor u qaado ama hadii aad tahay wiil walaalkay ah oo Soomaaliyeed oo saas oo kale raba inuu quruxdiisa iyo caafimaadkiisa uu kor u qaado waxaan aad mataqaanaa aan intii kaniiniyaal iyo wax cuni lahayd biliis walaalkayga Soomaaliyeed oo cuntadan dabiiciga ah ee aad heli karto wixii aad ka heli karto xataa qasab ma aha inaa hal mar sida aan u sheegay aad u qaadato awoodaada wixii aad ka heli karto cuntadan inaa lifekaaga aad ku darto oo aad lifekaaga aad ku dadaasho su'aasha caafimaadkaaga iska weydiinayso waxay tahay meeqa jeer ayaad musqusha tagtaa ma heli kartaa inaa maalinkii 2 jeer aad musqusha tagto ma heli kartaa inaa maalinkii 3 jeer aad musqusha tagto adigoo mataqaanaa calool xanuun iyo shuban iyo wax noocaas uusan jirin caafimaadkaaga halkaas ayaa mataqaanaa aad ka qiyaasaysaa halso maxaan u soo qaatay ilmaha yaryar ee cuntada mataqaanaa aan cunin ilmaha maadaama uu yar yahay cunuga calooshiisana ay yar tahay haddii digestive-kiisa uu sii halaabo waxaa imaanayso cunugii inuusan cuntadii qaadan karin ayaa imaanayso ama inflammation ayaa mataqaanaa ee ku imaanayo marka please haddii aad aragtid cunugaaga inuusan cuntada qaadan karin ha u fakerin inaad hadba cunto intaa ka bedasho cuntadii aad ku qasabta laakiin waxaa fiirsaa cunugan horta how many times messenger ayuu cunugan musqusha tagaa
waa inaa fiirsaa iyo qaabka mataqaanaa uu u egyahay saxaradiisa ee u eg tahay intaba waa inaa fiirsaa haddii aad ruux weyn tahayna sidaas oo kale marka calooshiina aad iyo aad oga shaqeeya oo u isticmaala waxyaabaha mataqaanaa dabiiciga ah inaa calooshaada u isticmaasho haddaba calooshaada oo aad ku dadaasho waxay prevented kaaga noqon kartaa ama waxay kaa ilaalin kartaa xanuuno badan iyo waxyaabo fara badan oo caafimaadkaaga ku imaan lahaa sida ay caloosha u shaqeysa ilaahay subxaanahu watacaala uu iskugu xiray ama xataa calooshaada haddii aysan fadhido waxaa imaanayso in aadan cuntooyinkii aadan kala bixi karin vitaminskii iyo mineralskii ee loogu talagalay in aadan kala bixi karin ayaa imaanayso marka calooshaada ay fadhido oo calooshaadii mataqaanaa ay wax ka qaldan yihiin soo on waxyaabo kale oo badan oo dhibaato ku keensan kara ayaa mataqaanaa ee imaan kara marka walaalahay waxaa idinka tegayaa cudur oo dhan waa caloosha ee calooshiina ka dadaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu